الرحمن الرحيم شركة قلها وزيرة عادية وما شركة دوميني رئيس الحكومة جمهورية فدرالية الصومالية مهدي محمد بوليد waxaa looga hadlay arrimo dhowr ay ka mid ahaayeen arrimaha amniga arrimaha xiriirka dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada iyo warbixino laga dhageystay wasiirka arrimaha dibadda wasiirka arrimaha gudaha ugu horeyn goluhu wuxuu aad uga hadlay arrimaha amniga taasoo la sheegay in dawladdu ay dardar gelinayso howlaha amniga iyo xasilinta dalka intaas kadib goluhu waxa uu warbixin ka dhageystay sidii loo xoojin lahaa xiriirka dawladda federaalka iyo dawladda dhexe dood dheer kadib golaha wasiiradu waxa ay wasaaraduhu intooda badan sheegeen inay xiriir wanaagsan la leeyihiin wasaaradaha dowlad goboleedyada gaar ahaan wasaaradaha qorsheynta waxbarashada wasaaradda arrimaha gudaha dastuurka warfaafinta maaliyadda boostada isgaarsiinta wasaaradda arrimaha diinta iyo waqaafta biyaha gargaarka cadaaladda dhalinyarada isboortiga ganacsiga amniga wasaaradahaas oo wasaaradihii maanta ka warbixiyey xiriirka ay la leeyihiin wasaaradaha dowlad goboleedyada waxayna sheegeen in wada tashiyo dhowra ay la sameeyeen haddana ay maaragtay sii kordhinayaan sii labalaabayaan sidoo kale golaha wasiiradu waxay hoos ka xariiqeen in xukuumaddan uu ra-iisul wasaare ka yahay xasan cali khayre ay tahay xukuumad aad maaragtay ugu soo jeesatay isla xisaabtan isla markaana aad maaragtay u kordhisay xiriirka iyo wada shaqaynta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka kulankii golaha wasiiradan bishii Juulaay lagu qabtay magaalada Kismaayo ee Jubbaland qorshuhuna waxaa in Baydhabo lagu qabto hase yeeshee maamulka Baydhabo waqtigii la isla heli waayey haddana weli la qorsheynayo in dowlad goboleed walbaba ay xukuumadda tagto golaheeda wasiirada halkaas ku qabsato golaha wasiiradu waxay soo dhaweeyeen baaqii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudanaha maxamed cali maxamed farmaajo ee ahaa midnimada iyo wadajirku inuu muhiim yahay lagama wada shaqeeyo sidaas daraaddeed xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa ka go'an inay labalaabto xoojiso xiriirkaas sidaas daraaddeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo ra'iisul wasaaraha xukuumaddaba waxa ay casuumaad rasmi ah u dirayaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada si ay u yimaadaan magaalada muqdisho isla markaana looga hadlo si loo xoojin lahaa xiriirka iyo wada shaqaynta iyo mustaqbalka siyaasadda dalka intaba intaas kadib golaha wasiirada waxaa la soo gaarsiiyey in taliyihii xoogga dalka Soomaaliyeed Jimcaale Cafiid uu iska casilay xilkii kadibna wasiir dowlaha gaashaandhigga oo uu goluhu hor keenay kala soo jeedin ku aadan taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed bacdama uu booskii banaanaaday in sareeyagaas Cabdiweli Jaamac Xuseen Gorod loo magacaabo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dood dheer iyo falanqeyn kadib golaha wasiiradu waxay si buuxda u ansixiyeen in sareeyagaas Cabdiweli Jaamac Xuseen Gorod uu noqdo taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed sidoo kale waxaa iyadana golaha wasiiradu aad uga walwaleen xaaladda dalka amniga uu ku jiro isla markaana in si loo dardargelin lahaa warbixino ayaa waxaa laga dhageystay wasiirada warfaafinta wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka arrimaha gudaha warbixinadaas oo ku saabsanaa wasiirka arrimaha dibadda wuxuu ka warbixiyey safarkii uu madaxweynaha la socday kii Sacuudiga iyo kii Suudaan iyo kii Masarba oo uu ku tilmaamay runtii in xiriirka aad loo xoojiyey isla markaana mashaariicdii hore u balan qaadeen Sacuudiga inay fulin doonto lacag 50 milyan ahna ay maaragtay dowladda soo gaarsiiyeen tana tusaysa sida ay uga go'an tahay dowladda federaalka Soomaaliya inay xoojiso xiriirka iyo wada shaqaynta dhammaan dowladaha waxaan kaloo iyadana aan rabnaa warbixinta aan ku darno wasiirka gaashaandhigga mudane Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed isagana inuu xilkii wasiirka wasaaradda gaashaandhigga uu iska casilay sababahana ay yihiin sababo oo personal ah golahana ay u rajeeyeen in muxuu ahaa
wasiirka muxuu ahaa inuu mustaqbalkiisa iyo howlaha dambe u qabsan doonaba lagu taageeri doono. Marka intaas ayuu ahaa golihii wasiirada iyo shirkoodii. aad iyo aad u mahadsantihiin.